يالي مروين ما أنتوا تاريخ دو تهاي تضمي لبعتنك ماي لبعض كوني كو لبعتنك ومعلم وين حقيقة دي أو تاريخ بال دهب إحنا كجلي دونت جدي صعدك دولة النماذج الصوماليات كدب دور معلومات أو دولة فدرال كي دولة حبناها كأه هي قبل كبنادر أي مجالات المقدسة والسعودين وضح الله كل عي جوي مسؤوليات تنازل iyo isqancin ku dheehan tahay waxaan ugu dambeyntii inagoo tixgelinayna danta guud ee dalka iyo dadka ku guuleysanay in xal iyo heshiis lagu wada qanacsan yahay lagu gaaro arrimaha madmadowga ku jiray ee doorashooyinka dalka iyadoo laga duulayo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 oo hagayay hanaanka doorashooyinka dalka lana tixgelinayo soo jeedintii guddiga farsamo ee Baydhabo waxa lagu heshiiyay qodobadii lagu kala aragti doonaa sida arinta gado hanaanka doorashada kuraasta Soomaaliland turxaan bixinta qaab dhismeedka guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dalka waxa kale oo guul ah in ay soo noqotay is-aaminaadii iyo wada shaqeyntii dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaan halkan mahadcelin uga jeedinayaa madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Puntland Koonfur Galbeed Jubbaland Hirshabeelle Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kuwaas oo xaqiiqdii muujiyay tanaasul dulqaad iyo xilkisnimo taas oo inoo fududeysay in aan waqti kooban xal uga gaarno arrimihii la isku haystay waxa mahad ballaaran u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo runtii dadaalkii uu geliyay hanaanka doorashooyinka dalka iyo tanaasulkii uu sameeyay oo horseed u noqday heshiiska maanta aan u dabaaldegayno sidoo kale waxa bogaadin iyo ammaan mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo gudoonkooda oo kaalin weyn ku lahaa in la soo gaaro halka aan maanta joogno iyo ansixinta heshiiskii 17 Sebtembar ee gundhiga u ahaa hanaanka doorashooyinka dalka mudanayaal marwooyin sidii aan horay idinkaga ballan qaadnay waxa aniga iyo xukuumadeyda naga go'an dhaqangelinta heshiiskan iyo in aan doorashada dalka galayo ku hogaamino si cadaalad ah daafurnaan xor iyo xalaal ah oo aan cidna lagu xadgudbin insha Allah hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu raali ka noqdo iyadoo aan ka ambaqaadayno heshiiskii 17 Sebtembar waxa mas'uuliyadii naga saaran tahay aniga iyo mas'uuliyiinta kale ee dhamaantood in aan xaqiijino in haweenka helaan qoondadii ay ku lahaayeen golayaasha sharci dejinta arrintaas aad ay muhiim ugu tahay waxaan maamul goboleedyada u sheegayaa in kuraastooda loo asteeyo shacabka Soomaaliyeed ee sharafta badan waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo garab istaagii adkeynta xasiloonida iyo dawladnimada aniga oo ka codsanaya in ay nagu gacan siiyaan mas'uuliyadda culus ee hirgelinta doorashooyinka waxaan marna la iloobi karin dardaarankiinii hadaatiin shacabka Soomaaliyeed iyo ducooyinkiinii niyadda ahaa ee aad sida joogtada ah ila wadaagayseen kuwaas oo runtii dhaliyay guusha aan maanta ku soo afjarayno shirkan wada tashiga qaran aniga oo ka faa'iideysanaya maalintan weyn waxaan ugu baaqayaa ka soo qaybgalayaasha munaasabadan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in aan iscafino qulubta isku furno niyad wanaagna la imaano marka aniga waxaan ka codsanayaa inaad cafisaan runtii waxa ii muuqata rajo iyo kalsooni aan ku qabo inay dalkeena ka dhacaan
doorashooyin loo wada dhan yahay laakiin far kaliya fool ma dhaqdo sidaa darteed waxaan dhammaantiin mas-uuliyiin iyo shacbidin ka codsanayaa inaad nagu garab istaagtaan si aan u gudanno waajibaadkayaga sidoo kale beesha caalamka waxaan uga mahad celinayaa kaalintoodii dowlad dhiska Soomaaliyeed anigoo ka codsanaya taageerada farsamo siyaasad iyo dhaqaale ee aan uga baahannahay qabsoomidda doorashooyinka ballanteenu waa doorasho daahfuran iyo isku duubni waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed walaalayaal soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada waxaan kaloo leeyahay walaalahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed gadaashay inaadan waxba ka raadin wax kasta hortayda yaalaan midna ogaada soo dhawaada markaan idin leeyahay maahan madaxtooyadu soo dhawaada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi